السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قيمة بدن أكو حلين كنال كان يوتيوب كيدين شري channel اسكو سو نقد وناكسن يارتي كلا حسله دوتي channel كحبكم إن سوق البين مشغول دراديد مركا ما أنت وحش على سنة ولا لا إن الفائدة دي هل كان وسوق البينو وسي ودنا إن شاء الله برنامج ما أنت وحكوا سياسين يا قراعة يا وحي ترتو يا هدو قف كتجوا دباتوين كيكينيس أنت أنا وجد بين فائدوين كيلا هاي نقف قراعة يا إنه قراعة كتجوا دباتوين كيلا هاي وحين كعصنا إن شاء الله الجنال كيان كعوسان سبسكرايب كا يشير لايك تا قراعة دتك قار كود أيها وقتها إني مشغول daraadi ama dadka qaarkood ayaa aaminsan inay quraacdu dhimayso cayilka ama buurnida maadaama qaarkoodna ay dareemin wax gaajo subaxii waxay sheegayaan khubarada caafimaadka dhamaantood inay quraac la'aantu u daran tahay caafimaadka qofka bini'aadanka quraacdo waana laga maarmaan subaxdii qofku inuu quraacdo maxaa yeelay qofku waa shidaalkii uu ku howlgeli lahaa maalintaas quraacdu waa inay ahaataa mid u wanaagsan caafimaadka quraac kasta caafimaadka ma wanaagsana quraacdu qofka waxay siisaa tamar iyo nafaqo la'aanta labada shay oo kaliya inay saameynayso caafimaadka jirka laakiin waxay saameynaysaa xaaladda nafsadeed ee qofka wuxuu isku arki karaa isku buuq wuxuu isku arki karaa oo kale xanaaq joogto ah gudagashada wixii aad qaban lahayd maalintaas oo aan ka fiirsan go'aanada qaar iyo caajis iyo waxyaalo kale oo la mid ah haddaba qormadan kooban oo aan ka soo xigeenay Jamaal Marjaan waxaan ku faahfaahin doonaa ahmiyadda ay leedahay in la quraacdo iyo haddaan la quraacin dhibaatooyinka laga dhaxlo ilaa baariyaashu waxay sheegayaan qofka aan quraacda cunin inuu cuno qada fara badan asoo qofku sameyn kadib sida quraacda gubitaanka fara badan lagu sameeyo aan qadada marka lagu sameeynin qofku markuu quraacan wuxuu markaa qadaynayo u baahan yahay hormoon fara badan naftiisa ay raadinayso cuntooyinka u badan macmacaanka iyo dufanka si sonkorta u dhicin waa hadii cuntadaas lagu qaday waa cunto aan jirka si sahlan uga bixin quraac la'aantu qofka waxay ka dhigtaa qof xanaaq badan ama cadho badan wuxuu dareemayaa daal iyo caajis dadka quraacda dadka aan quraacanin way ka fiican yihiin ama way ka firfircoon yihiin ama si shaqooyinka u qabanayaan maalintaas waxa kaloo halkaas soo gali kara tamartaada oo yaraato oo isdhinta kad quraacda subaxii ka tagto cuntadu waxay ka mid tahay jirka waxyaalaha uu ka shaqeeyo cunista quraac nafaqo leh waxay markaa jirka siinaysaa tamar iyo faa'iidooyin fara badan oo qofku markaa uu dareemayo maalintaas sidoo markaa ugu shaqeyn lahaa firfircoon markaa jirkiisu isna waxyaalaha aadka ugu tahay muhiimka qofku inuu ka tagin quraacda subaxdii ayay ka mid cuntooyinkan cunno ama cuntooyinkan qaadano waxay raad u yeeshaa nafaqooyinka ama jirkeena sidoo u shaqeyn lahaa markaas maqaarka qofka ayaa wax kaga raad la garan karo cuntadu jirka waxay siisaa nafaqooyin waxayna la dagaalantaa calaamadaha gabowga sidaa awgeed waxay ku talinayaan khubaradu in la yeelsan quraacda subaxii waxay tilmaameen khubarada caafimaadku inuu qofku cuno subaxii quraacda soo ka dhigto qudaarta iyo waxyaalaha laga soo dhigay caanaha sidoo kale sharaabada la cabay waxa kamid ah sida liin macaanta oo ay ku jiro vitamin C taasoo ka caawinaysa inay soo saarto borotiinada jirka ka caawinaya sida maqaarka lafaha murqaha iyo waxa la midkaaba waxa kale oo kamid ah halista cudurka loo yaqaan macaanka oo siyaadi kara iyo dhibaatooyinka marka aad kala kulmi kartid quraacda markaas aad ka tagtid subaxii diraasado la sameeyay waxa lagu arkay haweenkan cunin quraacda ay 54% u leeyihiin inuu ku dhaco xanuunka macaanka loo yaqaan kiisa labaad ee halista ah marka la barbar dhigo haweenka quraacda caafimaadka leh cuna la'aantu waxay halis ku tahay caafimaadka wadnaha diraasad la sameeyay waxay tilmaamaysaa inay kaga halis badan yihiin kuwan quraacan xagga wadna qabadka ama waran garaaco maadaama in nugul yihiin dadkan quraacanin inuu ku dhaco sida loo yaqaan xanuunka loo yaqaan dhiigkarka waxa kaloo sabab ku noqon kara quraacda oo aad ka tagtay inay shaqada maskaxdaada hoos u dhacdo ama shaqaynteedu marka ay gaabis tahay diraasad lagu sameeyay caruur dhigata dugsiga hoose waxa lagu arkay xasuusta dhow ee helaan caruurtu ayagoon soo quraacanin inay ka hooseyso caruurta soo quraacatay oo macnaheedu yahay inay xasuusta ku wanaagsan yihiin kuwa soo quraacday diraasad kaloo la sameeyay dhalinyaro waxaa lagu arkay natiijo tan oo kale la mid ah haddaba ma ka mid tahay quraacda waxyaalaha aad fududaysato aad markaa joogto u helin